maqal ma jira maqal ma jira horta marka hore xuseen xildhibaan xuseen caraale waa salaamayaa marka ugu horeysa marka xiga waxaan nahay dad taageersan dowladda ku meel gaarka ah runtii waa u dhabar adeegnay si haddii loo fiiriyana waqtigu kuma badna dowladda barkii waxaan ognahay in meel hoose wax laga soo bilaabay waxaan kaliya hoon rabnaa dhibaatada jirta ayaana xanuujihaysa marka xaaladii ugu dambeysay ee maanta ka dhacday Ruunirgood degmada Ruunirgood iyo meesha la yiraahdo cali axmed ka tirsan degmada aadan yabaal ee dagaalada ka dhacay meeshaas xiriir may leeyihiin mase waa dagaalo kala duwan oo dadka deegaanku ay uga soo horjeedaan nimankan dalka qabsaday dadkana dhibaatada ku haaya intaas ayaan rabaa inaan xildhibaanka weydiiyo marka waana mahadsan yahay waana salaamayaa insha Allah assalaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأنا الله أنا ملاينا سفع عوضه dagaalada maanta ka dhacay maaragtay gobolka Shabeellada Dhexe gobolka Shabeellada Hoose waxaan u maleynayaa waa dagaalo wax badan la sugayay oo maaragtay wax badan ay sugayeen jaaliyadaha qurbaha jira oo ugu daraa ugu badnaadaane marka waa dagaal la og yahay waana soo bilowday waxaan rajaynaynaa after 1 week in maaragtay cadowgaas oo kasoo holaalo deegaamadaas oo meesha uu ka yimid ku laabto marka warkayga waxaan rabaa waa iska soo kookoodaa intaasaa kusoo kookoodaa aad iyo aadaan mar labaad mar saddexaadna jaaliyadda ugu mahad celinaa dareenka hore dheeraadka marka wax kasta oo maaragtay dib loo dhacay waa dareemayaan oo meel 20 sano dowlad ka maqneeday oo banaan ayaa wax laga bilaabayo wax laga yagloolay marka waxaan leenahay kulle wixii hadda ka dambeeya waxaan rajaynaynaa cadowgu waa ka baxa dalkayna marka aad iyo aad aynu mahadsan yihiin jaaliyadda Soomaaliya xildhibaani aad iyo aad ku rabaa jooga meesha oo kugu hambalyeynay guusha ee gaartay gobolka degmada Ruunirgood marka waxaan jeclaan lahaa mudulood gaal soo qabso adiga mudulood gaal hadii la waayo soo qabso Iron Woman soo qabso Iron Woman ku soo noqo meesha waa gabar habeen iyo maalin u taagan waa nabadda marka soo qabso Iron mudulood gaal hadii la waayo Iron adaa iskale ها maxay ahayd dhamaantiin waa salaamantiin jimco ma joogto miyaayada gabdhaha siyaasadda habeen iyo maalin aan ka seexan ee ku gubtay ee ku maartay si dawladana ay u hana qaado ma joogaan miya aawaysa sagal ma joogto maya waa maasha Allah tabaarak maanta guusha ay gaareen gobolka Shabeellaha Dhexe waligood yaaloodna guusha way macnaha way hormuud bay u ahaayeen raalika ah topic waa ka dhacday mudulood gaal soo qabso insha Allah adaa iskale okay aniga su'aashan weydii lahay waxa iga wakiil horta waa salaama xildhibaanka cadaawe meega qabso bedelkayga su'aashi aaleed waa weydii qof aan isku nahaanay cadaawe qabsaa buu thank you muduloodno gudoomiyaha waa salaamayna horta marka hore xildhibaanka Xuseen Caraale marka labaad waxaan leenahay su'aal ma aha aniga tayda waxa waaye fariin waaye waxaan leeyahay arintu yeysan noqonin sida dagaalka 3 biloodka ah oo meeshii laga xoreeyo dad nimanka cadawga ah yaan dib looga soo bixin aysan ku noqonin tan labaad waxaan leeyahay Xuseen Caraale xildhibaanka waxaan u sheegayaa dadka masaakiinta ah ee meelaha dawladda degan ee laga bixinayo ee dawladda ay ka bixinayso inta aysan ka bixin goobaha ay ku jiraan meel kale dawladda ha u raadisaan leenahay ilaa dawladdu shacabkay dawlad u tahay ma aha dawladdu dhulka dawlad uma aha dadka iyo dhulkaba dawladay u tahay Xuseen Caraale waan ku salaamayaa saaxiibkay
woman kusoo noqo miiga adaa iskale hero woman kusoo noqo raalli ka ah reedka daay marka toobiga kolleytaba haddaad kusoo noqotay qolkan u malaynayaa soo qabso miiga adaa iskale اوكي بايلو soo qabso بايلود bas iftin soo qabsada labadiina soo qabsada ايرون ما جوجتا ايد السور رال نقصو قبسة بل ايرون ايروهمن ما جوجتا مالينا السلام عليكم وانا سلام يا دمانتين قارها وحن سلام يا حلدبانه حسين